kulanti wacan mar kale daawadayaal Ramadaan Kariim meel kastoo joogtaan ku soo dhawaada warkii TV-ga Universal oo habeenkani caawa kaga imanaya xarunta TV-ga uu ku leeyahay magaalada Hargeysa warkana waxa idila socodsiin doona hadii Allah awood leeyahay maanigu Cabdirashiid Cabdi Wahaab Xuseen qodobada ugu waaweyn ee warkayga caawa idgu aynana waxa kamid ah dawladda Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in bangiga adduunka ugu deeqay lacag dhan 50 milyan oo dollar taasi oo wax loogu qabanayo dadkii ay abaaruhu ku dhufteen iyo waliba ka soo kabashada abaaraha madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo ayaa waxa habeennimadii xalay ahaa madaxtooyada Soomaaliland kaga qayb galay kulan ballaaran oo guddiga taakuleynta abaaruhu ay ku soo bandhigayeen kharashaadka soo galay tan iyo intii madaxweyne Siraayo magacaabay xaaladda shuban biyoodka magaalada Burco ayaa waxay maraysaa heerkii ugu sareysay taasi oo gaadhay heer dhimasho waxaana mas'uuliyiinta dawladda hoose magaalada Burco ay sheegeen in la geliyay magaalada Burco xaalad degdeg ah lana fasaxay dhammaan iskuulada kala duwan ee ku yaala magaalada Burco ciidamada amniga magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa waxay gacanta ku soo dhigeen gaari sidii khudaar oo lagu soo dhaxqariyay foostooyin dhowr ah oo ay ku jiraan qaraxyo waaweyn oo la damacsanaa in lagu qaraxiyo magaalada Boosaaso daawadayaashaasi waa qodobadeedii warka qodobadaas iyo waliba kuwa kale faahfaahsanba ku soo dhawaada kulanti wacan mar kale daawadayaal ku soo dhawaada warka oo fidsan dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in bangiga adduunka ugu deeqay lacag dhan 50 milyan oo dollar taasi oo lagu talagalay in wax lagu qabto dadka ay saameynta ku yeesheen abaaraha iyo waliba ka soo kabashada abaaraha Soomaaliya faafaynta warkan waxa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdinaasir Ayaale shirkan jaraa'id oo maanta xafiiskiisa ku qabtay wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa kaga hadlay 60 cisho uu magacaaban yahay waxa ay qabatay wasaaradda maaliyadda wasiir Beyle ayaa sheegay inay ku guuleysatay bixinta mushaaraadka ciidanka iyo shaqaalaha kale ee dawladda taasina ay tahay waxay ku faanayso wasaaradda maaliyadda labada bilood aan joognay marka waxaan oranayaa waxa weeye waxa bushaare weyna labada bilood badhaaf oo January marka laga soo bilaabo ilaa iyo bisha aakhirkeedii April bisha afraad qof walba mushaaradiisa inuu qaatay baa bushaare weyn qof walba mushaaradiisa inuu qaatay bushaare weyna ciidamada mushaarada la siiyay bushaare weyna ciidamada cuntadoodii in la siiyay bushaare weyna shaqaalaha oo dhan inay mushaarada qaateen baa bushaare weyna waxa bushaare weyna waxyaalaha running cost la yiraahdo waa Ingiriisi oo looga jeedo waxa lagu dhaqdhaqaajiyo wasaaradaha dhexdooda waraaqaas oo iibsigood iyo biyaha iyo qalinka iyo buuga iyo printerka iyo waxyaalahaas ayaguna inay qaateen all of them sidoo kale wasiirka wasaaradda maaliyadda ayaa sheegay inay jiraan shaqaale ka diiwaan gashan wasaaradaha kala duwan ee dawladda oo aan si sax ah u shaqeyn taasina ay la xisaabtamayaan cidda ay qosayso lagana rabo wasaarad walba inay si joogto ah u shaqeeyaan shaqaalaheeda mushaar qaato qof kale mushaar qaato inuu shaqeeyo arrintaas laba qaybsataa mid waxa weeye boqolka qof ee aad tiri wasiiro way ku shaqeeyaan ma joogan ma ku shaqeeyaan oo ma jiraan oo dad nool oo la arki kara ma yihiin arrintaas shaqadeedu way socotaa waana la soo afjari doonaa haba joogaane ma shaqo yimaadaan waxaan ku sheegayaa waa idin sheegayaa wax way dad iyo Soomaaliyeed dad fara badan oo qoran mushaar qaata waa shaqo iman ma soconayso xaraan weeyaan taas ugu dambeyn Cabdiraxmaan Ducaale Beyle wasiirka wasaaradda maaliyadda ayaa ka warbixiyay lacaga ay ku deeqeen banka adduunka taasi oo loogu talagalay in wax looga qabto abaarta ka jirta Soomaaliya ay ku bishaareynayaan dad iyo Soomaaliya shalay waa laga soo World Bank warqadan soo saaray waa shalay weeye waa bisha 7 shalay ma 50 milyan oo dollar baa Soomaalida loo ogolaaday loona ansixiyay shalay oo abaaraha iyo arrimaha dib u soo celinta dhaqaalaha ku jirta waxa weeye waa guul wanaagsan weeyaan waxaanay ku salaysan tahay waxa weeye waxyaalaha dawladda ka qabanayso habka ay u qabanayso sida ay diyaar ugu tahay in buugaagteeda la baaro wax walba la eego ay diyaar ugu tahay waa arrin wanaagsan weeyaan marka waxaan maanta ku tali jiray waxa weeye waxa la nooga baahan yahay samayno 12 bilood maanta mar laga joogo in la naga daayo lacagta diinta la naga dhaafo wala iska dhaafo diida kale waa laga dhaafo
maxamed cabdinaasir ayaana universal t v magaalada muqdisho. madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo waxa uu madaxtooyada Soomaaliland uu kala qayb galay munaasabad aad u ballaaran oo lagu soo bandhigayay isla markaana guddiga taakuleynta abaaruhu ay ku sheegayeen kuna shaacinayeen kharashaadkii soo galay tan iyo intii madaxweyne Siraayo uu magacaabay xilkaasi. madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo ayaa waxa uu habeennimadii xalay ahaa aqalka madaxtooyada uu kaga qayb galay munaasabad aad u ballaaran oo guddiga taakuleynta abaaraha Soomaaliland ay ku soo bandhigayeen xisaab xidhkii tan iyo intii madaxweyne Siraayo uu magacaabay iyo waliba lacagihii soo galay iyo meelihii kala duwanaa ee ka soo galeen iyo waliba goobihii ay ku bixiyeen lacagahaasi. kulankaasi oo qayb ka ahaa madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo ku-xigeenka madaxweynaha xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo waliba marti sharaf kale oo aad u tiro badan ayaa waxa ugu horreynba halkaasi hadal ka soo jeediyay Sheekh Maxamed Aadan oo ka tirsan guddiga taakuleynta abaaraha oo ka waramay lacagihii iyo kharashaadkii soo galay tan iyo maalintii madaxweyne Siraayo uu magacaabay taakuleynta abaaraha Soomaaliland. xukuumadda Soomaaliland golayaasha qaranka shaqaalaha dawladda iyo ciidamada 2,525,147,616 dawladda Soomaaliya 1 milyan baa naga soo galay. shirkadda Telesom 680,000 oo dollar ayaa naga soo gaadhay iyo 7,500 oo kartoon oo timir ah. Dahabshiil Group waxa naga soo gaadhay 280,000 oo dollar. Som Cable 280,000 oo dollar. shacabka Soomaaliya 300,000 oo dollar. Berbera Oil Group 200,000 oo dollar. Omar International Company raashin kala duwan oo u dhigma 200,000. Indhadeera Group 20,000 oo Soomaaliland ee dollar 20,000 oo dollar iyo raashin kala duwan oo u dhigma 53,000 oo dollar. Maxjarka Aljaabiri 100,000 oo dollar. jaaliyada Soomaaliland iyo Soomaaliya Kenya 90,000 oo dollar. laakiin waxa jira lacagayo kale oo ay u soo dirdireen deegaankan iyo goboladan ay u soo direen laakiin taa nagu soo dhacday. Xaaji Axmed Daahir Baxsane 50,000 oo dollar. muxsinkii imaka Samafale Mustafa Jaamac 50,000 oo dollar iyo raashin kala duwan. xafiiska xoghaynta igad ee Djibouti 50,000 oo dollar. shirkadaha dawooyinka ee Diwo 42,000 oo dollar. Al-Harbi 40,000 oo dollar iyo container raashin kala duwana. Al-Ikhwa 35,000 oo dollar. Al-Nuur saliid ku qiimaysan 30,000 oo dollar. jaaliyada Soomaaliland iyo Soomaaliya ee Uganda 24,380 marka laga tago ganacsatada waaweyn ee guddida ku jirtay waa wax yar. idinka ayaana asturay xisaab nagama idaan dalban idinku annaga xiisaynay laakiin aan idin warano annagoo eedaysanayaala oo cid ka cabsanaynana xisaabta maanaan keenin taa dareensanaada. gabagabadii munaasabadaasi ayaa waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Xaashi Cabdi iyo ku-xigeenka madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici. ilaahay waxaan ugu walbanay dhammaanteedba ina 10 iyo 20 noocaasa in badan la mid ah oo qurbi joogto oo maartay waxay sitaa way jirtaa ninka aad iyo aad runtii waan balinay waan ugu ducaynaa runtii duca gaar ah siinaa niyad u qiimo badan samafal isagoo iskii ana cidna u yeelin isagoo socdo guddiga u yimiday wuxuu jeegaa furan waxa doonti ku qorta markuu soo arkay maalintii uu na weydiiyey meeshii soo arkay ummadii dhibaatada haysatay meeshii socotay markuu arkay jeef furan buu dhiibay ninkaas walaalkeena aad iyo aad baan runtii in dhammaanteen ducayno. Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen Universal TV Hargeysa. wahagaag daawada weli halkan nagala socotaan wax runta TV-ga Universal uu ku leeyahay magaalada Hargeysa. wararka kale wariyaashaydu noo soo dirayaana waxaa kamid ah xildhibaano sanataro siyaasiyiin iyo qaybaha bulshada oo ka soo jeeda gobolka Banaadir ayaa ka soo horjeestay hadal ka soo baxay madaxweynaha maamulka Hirshabelle kaasi oo ahaa in madasha maamul samaynta gobolka Banaadir gogosheeda la dhigay degmada Balcad ee Shabeellada Dhexe. senator Sheekh Muude Gacal xildhibaan hore Qaasim Furduk Malaaq Cali Malaaq Maxamed Malaaq Weyliye iyo xubno kale ayaa madaxweynaha maamulka Hirshabelle ugu baaqay inuu faraha kala baxo arinta maamul samaynta maamulka gobolka Banaadir waxaana ay ku baaqeen in gogosha maamul samaynta aayaha gobolka Banaadir la dhigay magaalada Muqdisho. meesha la yiraahdo degmada Balcad in gogol laga fidiyo Banaadir leedahay oo ku dhawaaqay madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabelle علي عبد الله عصب علي عبد الله عصب لو حنقارسين فرين ولا النماء وضد النماء له وأكون هالسنة هاي وحقوا في ذي
laakiin gooshaas meesheedu ma aha Mr. Farmaajo waxaan u jeedinaynaa khayre oo prime ministerka ah iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo gobernatoraha banaadir annagu banaadir ah ma ihin gobernatore oo jowhar ma ahin muhiimadda halkan loo sugid waxa weeyaan gogashii laga dhawaajiyay oo la yidhi balcada lagu dhigaa maxaa balcada lagu dhiga laakiin muhiimadda waxaa kasii habboon maamuladaas iyo mas-uuliyiintaas waxaan sheegaynaa gobolka banaadir gogol ah dadkeeda gogol ah ma ansax in meelka loo raro idoo gobolka banaadir gogosha iyo maqaamkii iyo nidaamkii iyo qaabkii loo samayn lahaa ama loo egleeli lahay lagu samayn karo in loo raro gobol kale sax ma ahan maamul jiro inuu maamul kala faragashtana sax ma ahan war-saxaafadeed lagaga soo horjeedo hadalka ka soo baxay madaxweynaha Hirshabelle oo ku aadan arrinta gobolka Banaadir ayaa goobta waxaa ka aqriyay siyaasiga Cabdicasiis Xildhibaan. horey looma arkin maamul goboleed lagu soo dhisay meel ka baxsan deegaankooda suurtagal ma aha maanta dadka ku dhaqan gobolka Banaadir in loogu sameeyo maamul goboleed gacan ku rimis ah waxaan xusuusinaynaa isku daygii fashilmay dawladdan tii ka horeysay ay ku doonaysay in maamulka hadda ka jira shabeellaha Hirshabelle loogu sameeyo maamul goboleed magaalada Muqdisho ka soo shaqeyn waay suurtagal ma aha in meel ka baxsan magaalada Muqdisho ama gobolka Banaadir maamul goboleed gacan ku rimis ah looga keeno. ugu dambeyntina xildhibaanad Mira Xasan Shibis ayaa madasha ka hadashay. waan taageerayaa waana soo dhaweynaynaa waxaan kaloo rabaa inaan meeshan ka dhaho hadalkii ay dawladda federaalka iyo gobolka Banaadir ay soo jeediyeen oo ahaa inay u istaagayaan in la dhiso maqaamka gobolka Banaadirna waa soo dhaweynaynaa waana kala shaqeynaynaa haddii aan nahay siyaasiyiin haddii aan nahay dhaqan haddii aan nahay bulsho weynta. Cabdicasiis Ibrahim Axmed Okey TV Universal. ciidamada amniga ee magaalada Boosaaso gobolka Bari ayaa waxa ay gacanta ku soo dhigeen gaari siday khudaar oo lagu soo dhaxqariyay foostooyin dhowr ah oo ay ku jiraan qaraxyo waaweyn oo laga damacsanaa in lagu qarxiyo magaalada Boosaaso. Faafahinta warkani waxa magaalada Boosaaso inooga soo diray wariyahayaga Maxamed Maxamuud Madani. ciidamada amniga gobolka Bari ayaa ku guuleystay inay gacanta ku dhigaan gaari nooca xamuulka ah oo siday qudaar lagu soo dhaxqariyay walxaa qarxa iyo agab kale oo ay ka mid yihiin isgaarsiinta ciidamada taarikooyin iyo 2 nin oo la sheegay in ay wateen qaraxaneed. taliyaha qaybta booliska gobolka Bari Cabdixakiin Yuusuf Xuseen oo la hadlay warbaahinta ayaa si kooban wax uga warbixiyay qaraxyadan ay ciidamadu qabteen. waan rabnaa inaan u sharaxno dadweynaha waxa halka yaala waxay yihiin laga soo bilaabo khasnadaas afarta birood oo sanduuqyada ah taa kale 6 xabo waxa weeye waa bahalii lagu diyaariyay qaraxa lagu diyaarinayay oo ay ku jidho 6 marka waxa loogu talagalay kiiba 2 xababa in gaari lagu diyaariyo 3 gaari bay ugu talagaleen korka waxa ka saaran waa F1nadii kuwaani waa GF-yadii kuwaani waxa weeye anteenooyin casri ah oo qalab hadda annaga annaan haysbaalkii ay ayagu haystaan ay ku loogu duulayay waxaani waa jaajaradii 2 bahal oo halka ku duuban oo mobiladahi waa kuwii bahalaha la dhex gelin lahaa oo qarax samayn lahaa kuwaani waa taargooyin waxa weeye halka waxa ku jira jeegaas waxa ku jira manqasyo loogu talagalay inay qalliin iyo operation ku sameystaan wixii dhaawac oo gaara bahasha halka ku jira 2 cadar barafuuno way midaas expresska iyo midda kale waa cadaro kulli ayaga yaqaan waxay ugu talagaleen waa kuwa ay dadka ku khaldaan waa ay qofku markay dirayaan ugu magaciiseeyaan alaabta tirada badan oo halka taala cadowga ummadda Soomaaliyeed cadowga reer Puntland waxay ku talagaleen dadka islaamka ah oo Sooman oo wax maslaxada iyo wax dhiba ayagu ay u geysteen aan si jirinin inay inta qaataan dhulka la gooyaan oo ku dhibaateeyaan ilaahay baa ku mahadsan ilaahay naga qabtay oo nasolonsiyay iyo ciidamada geesiyaanta oo feejigan baa mahadda iskale ilaahay baan uga mahad celinaynaa sida daraadeed ummadda reer Puntland waxaan u sheegaynaa in loo soo shaqo tagay
in cadow lagu yahay in loo soo duulay askari walba oo dariiqa taagay inta gaarigaas wuxuu soo maray xuduudka Puntland wuxuu ka soo galay Gaalkacyo Burtile alaab uu dhigay Gaalkacyana alaab uu dhigay Garowana alaab uu dhigay Qardhana alaab uu dhigay wasaaso oo meesha ugu dambeysay Puntland baana lagu qabtay intaasna waxa way Puntland buu soo dhex jiray waxaanu leenahay marka feejignaada oo aragnina waxa la inii wada qudaar inay tahay subba inay ku aasan qarax baa inay ku aasan xoolaha inay wadaan iyo ariga laftigiisa inta qaataan xataa in iskaan la saara la rabaa calooshiis wax allaale iyo waxay ku tala gelayaan oo kasto ay nagu dhibaateynayaan waa inagu dhibaateynayaan gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Waacayse Dhedo ayaa dhankiisa waxa uu ku amaanay laamaha amniga talaabadan ay uga hortageen falkan lidiga ku amniga gobolka dawladda naftigeedu waa inay abaal marisaa ciidamada heeganka iyagoo sooman iyagoo muxuu ahayday dhiba badan qaba haddana operationada ku jiro muxuu ahayday had iyo jeer cadowga la dagaalamayo gacanta ku dhigayo waxa weeye in la abaal mariyo oo mid walba wixii uu mutaystay waxa weeye la siiyo baan codsanaya midda kale reer Puntland waxaan leeyahay tan ma aha bilow ma aha dhamaadkina ma aha waa arrin mashruuc iska socda weeye tii hadda ugu dambeysay waa tii muxuu ahayday 5 nin iyo qarax la qabtay horaantii bishaan ayay ahayd markii ciidamada amnigu gacanta ku dhigeen qaraxyo noocan oo kale ah iyo raggii waday waxaana toddobaadkan ay maxkamadda ciidamada qalabka sida 5 kamid ah dadka lagu qabtay qaraxa ay ku riday xukun dil toogasho Maxamed Madani Universal TV Boosaaso xaaladda shuban biyoodka magaalada Burco ayaa waxay maraysaa heerkii ugu sareysay ee heer dhimasho waxaanay mas'uuliyiinta kala duwan ee degmada magaalada Burco ay shaaciyeen kuna dhawaaqeen in magaalada Burco la geliyay xaalad degdeg ah lana fasaxay dhammaan iskuulada ku yaala magaalada Burco faafahinta warkani waxa magaalada Burco inooga soo diray wariyahayaga Xabiib Ciga Xasan magaalada Burco ayuu farabaan ku haya xanuunka shuban biyoodku xarunta loo sameeyay daweynta xanuunkan oo ku taal cisbitaalka Burco ayaa intii la sameeyay la soo gaarsiiyay in ka badan 3,000 oo qof oo soo ritay xanuunku badankoodana la daaweeyay 48 saac oo u dambeeyay ayaa waxa uu geeriyooday xanuunkaasi dad gaaraya 20 qof haddaba kulan degdeg ah oo maanta isugu yimaadeen mas'uuliyiinta degmada Burco xildhibaanada golaha deegaanka iyo maamulka caafimaad ayaa ku dhawaaqay in degmada Burco la geliyay xaalad degdeg ah lana joojiyay imtixaanaadkii ardayda iyo dhammaanba goobaha waxbarasho oo fasax la geliyay si loo yareeyo faafidda xanuunkaasi waxaana saxaafadda u akhriyay qodobadii ka soo baxay kulankaasi meeyarka degmada Burco Ustaad Maxamed Muraad golaha deegaanka degmada Burco annagoo la kaashanay wasaaradda caafimaadka wasaaradda waxbarashada ciidankii amniga 9 qodob baan isla gaadhnay 9 qodob ay ugu horeyso qodobka koowaad gobolkan Togdheer degmada Burco saacada laga bilaabo inay ku jirto xaalad degdeg oo caafimaad qodobka labaad in wacyigelinta dawladda hoose iyo wasaaradda caafimaadku ay iska kaashanayaan la laban laabo oo la sii laban laabo waxaan markaa go'aan ku gaadhnay imtixaanka totalamiinto in la joojiyo wasaaradda waqtiga ay qaadayso ardayda markay soo noqoto ha ka qaado laakiin maanta la joojiyo waxaan iyagana fasax lagu kala diraya dhammaan malcaamadaha iyo iskuulada madaxa bannaan bareefadiyada meesha isugu yimaadaan dadkuba kontaroolada magaalada waxaan dhigaynaa shaqaale tababaran oo dawladda hoose iyo wasaaradda caafimaadka isugu jira wixii baxayana waa la buufinaya wixii soo gelayana waa la buufinaya arrinkan wasaaraddan iska kaa laakiin waxaan u sheegaynaa bulshooyinka reer Togdheer maadaama gobolkeena iyo degmadeena xaalad caafimaad marayo saaka howlgal baa dawladda hoose iyo xildhibaanadii arkaysaan aanu ilaaminay waxa loo baahan yahay inaad si weyn uga qayb qaadataan mugla hadaa ganacsato tihiin hadaa aqoonyahan tihiin hadaa odayaal tihiin hadaa dhalinyaro tihiin wasiirka caafimaadkan calaanayna runtii shaqadiisa kama soo bixin waxaad moodaa gobolkan intuu soo galay sidii dalxiis inuu yahay intuu 2 saacadood joogay buu dib u noqday marka haddii laga tago waa in la calaanto waan sheegaynaa fartan ku fiqnaa haddaan nahay gobolka Togdheer muwaadin waxaan ku sheegaynaa oo idinku celcelinaynaa maanta waxa weeye xanuunka shuban biyoodka horta Ilaahay subxaanahu wa ta'aala haynaga kor qaado waxa laakiin isku duubnidiisa koow ka ah ama xuduntiisu tahay waa nadaafada guud gurmadka ay ka qabatay iyo hadii beedankeeda leeyahay ama waxtar ha ahaado hadii beedankeeda heerka wax u gaarsiiyo ogaashihiisa dawladda dhexe waan ku canaananaynaa 100% hawshan la hawl gobolkan Togdheer iyo degmada maanta ka baaxad weyn weeye Xabiib Ciga Xasan Universal TV magaalada Burco
maamulka galmudug ayaa waxay deeq lacageed ay kala wareegeen guddiga qaran ee taakuleynta abaaraha Soomaaliya lacagtaasi oo dhanayd 200 oo kun oo dollar oo loogu talagalay in loo qaybiyo dadka ay saameynta ku yeelatay abaartii ku dhufatay Soomaaliya. Faafahinta warkani waxa ay noo soo diray wariyahayaga Maxamuud oo aadan oo ku sugan magaalada Cadaado. xubno ka socday guddiga qaran ee gurmadka abaaraha ayaa lacag ku wareejiyay dowlad goboleedka galmudug taasoo loogu talagalay in lagu caawiyo dadka abaaruhu ay saameeyeen iyadoona lacagta galmudug lagu wareejiyay ay gaarayso 200 oo kun oo dollarka Mareykanka ah. goobta lacagta lagula wareejinayay guddiga gurmadka abaaraha dowlad goboleedka galmudug ayaa waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynaha galmudug iyo ku-xigeenkiisa Ahmed Diblaawe Casir oo ka mid ah guddiga qaran ee gurmadka abaaraha ayaa sheegay in deeqdan lacageed ay tahay midii saddexaad ee lagu wareejinayay dowlad goboleedka galmudug oo ka imaatay guddiga qaran ee gurmadka abaaraha. madaxweyne ku-xigeen waxaan runtii fariin culus aan ka wadnaa guddiga qaran ee gurmadka abaaraha oo uu hogaamiyo ra'iisul wasaaraha dalka mudane xasan cali khayre fariintaasoo ah in runtii ay idinku ammaanayaan hawsha wanaagsan ee gurmadka abaaraha runtii ay ka soo qabteen guddiga heer gobol iyo madaxda oo runtii la shaqeynaysay. waxaan rabnaa deeqda 200 oo kun oo dollar ah oo wajigii saddexaad ah inaan maanta halkan ku wareejino oo aan rajaynayno inaysan noqon doonin tii ugu dambeysay. gudoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha dowlad goboleedka galmudug Shire Xirse Maxamuud ahna wasiirka gargaarka iyo bini'aadanimada galmudug ayaa u mahad celiyay guddiga qaran ee gurmadka abaaraha ee soo gaarsiiyay deeqdan lacageed. waxaan uga mahad celinaynaa sida ay mar walba baahida deegaanka ka jirta ay update ugu yihiin. waxaan si aad u jeclaa lahayn galmudug weli qaangaar maaha in maaragtay inta hadda xaaladdu ay iska bedelayso aadna loogu soo noqnoqdo. madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa sheegay inay jiri doonaan gurmadyo dheeraad oo lagu taakuleeyo dadka abaaruhu ay saameeyeen isagoona xildhibaanada ku amray inay tagaan deegaanada ay matalaan isla markaana ay tirakoob ka keenaan saameynta abaarta ay ku reebtay dadka iyo deegaanka. intaan malaawaalin lahayn oran lahayn degmo hebel waxaa ka fiican inaan dhiraano 200 oo qof baa tuula hebla ku barakacday 200 baa xagga joogta 100 baa xagga joogta 50 baa xagga joogta si exactly dadka xaqa u leh ay u gaarto mucaawanada. laakiin waxaan rajaynayaa muddo kooban gudaheed waan rabay baarlamaanka maalin weyn oo diray haddana waa u sii diri doonaa gudoomiye ku-xigeenka baarlamaankana waa u sheegaynaa gudoomiye qof kasta oo xildhibaan kursigiisa inta aado waa inuu soo tira koobaa dadka barakacayaasha oo meesha jooga. maxamed maxamuud owaadan TV-ga caalamiga Universal Cadaado. gudoomiyaha ahna musharaxa jagada madaxweynaha xisbiga maxaafidka kulmiye Muuse Biixi Cabdi oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta uu xisbigu ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu baaqiyo kala duwan u diray dawladda iyo waliba qaybaha kala duwan ee bulshada sidii dadaal lagu gali lahaa xakamaynta shuban biyoodka oo faraba aan ku haya magaalada Burco. gudoomiyaha xisbiga maxaafidka kulmiye ahna musharaxa jagada madaxweynaha xisbigaasi Muuse Biixi Cabdi oo maanta shir jaraa'id ku qabtay xarunta xisbigu ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ugu baaqay xukuumadda ganacsatada dadweynaha iyo waliba qaybaha kala duwan ee bulshada inay ka qayb qaataan sidii loo xakamayn lahaa cudurka shuban biyoodka oo hadda faraba aan ku haya gobolka Togdheer isla markaana saameyn baan ku yeeshay deegaanada gobolada bariga. waxa maanta culayska weyn naga saaray waa shuban biyoodka oo ku fidaya dalka ka soo bilaabmay oo hode laascaanood boorama waa la xakameeyey alxamdulilah hadda Burco ayuu xoog weyn ku yahay. taa darteed waxaanu baaq weyn u diraynaa wasaaradda caafimaadka hay-adaha dadka ka caawiya caafimaadka ee ugu horeysa WHO in gurmad degdeg laga gala arrinta gaar ahaan magaalada Burco oo imka dhimashadu aad u kordhayso iyo shuban biyoodku inaanu saa u sii fidin. waxaan taa kaga baxaynaa marka hore in la sameeyo wacyigelin xoog leh oo ay ka qayb qaataan dhammaan TV-yada wargeysyada iyo website-yada. xilli roob baynu ku jiraa abaar baynu ka soo doognay dadku raxmadii biyaha waa u jecel yihiin dad iyo xoolaba aan ahdeen
shubanbiyoodkuna waa cudur ku fidan gebigiisuba gacantaada iyo afkaaga waxa weeye gacantaadu baa taabanaysa meel uu ku jiro jeermis waa biyo waa cunto u dastaabtay waa wax lamid ah dabeetana gacantii baa afka gaaraysa dabeetana dheefshiidkii buu burburinaya waxa u nugul caruurta iyo dadka maaragtay waayeelka haweenka uurka leh ta wax jaqsiinaysa waxaynu u baahannahay aqoon-yahanka jaamacadaha dadka ku jira dhalinyarada gacan banaan kuwa kale aqoonta leh inaynu u gurmano inaynu ka hortagiisa ka hawlgalno oo biyaha fadhiya la dhaqaajiyo oo la jeexo biyo loo fadhiyo in dadka sida meelaha cidhiidhigaa degan ee isku dul maaragtay isdulsaarka ah ee musquluhu ku yaryihiin inaynu gurmad ka galo wacyigelin iyo tabaruco waxnu ka qaban karo muuse biixi cabdi gudoomiyaha xisbiga maxaafidka ee kulmiyahana musharaxa jegada madaxweyne ee xisbigaasi waxaa kaloo ka hadlay kulan ay yeesheen guddiga fulinta xisbiga kulmiye kaasi oo ahaa in laga qayb qaato sidii loogu diyaar garoobi lahaa qaybinta kaarka codbixiyayaasha oo dhowaan ka bilaami doonto gobolada Maroodijeex iyo weliba Togdheer. maanta halkan waxaanu ku fadhinay shir baanu ku lahayn xubno ka mid ah golaha fulinta hoggaanka golaha dhexe ee xisbiga oo ay ka mid yihiin markii u horreysay aanu soo dhaweynay qoloyin xubnaha iyagaa kusoo biiray madaxda ah oo ahaa xisbiyada raggii ka yimid kale ama raggii markii horeba xisbiga ku jireen soo biiray garabkii jamaal iyo muumin seed qoladii wadani oo ka mid a xubnaha ugu sarreeya talada wax kula ahayn xisbiga waxaanu ka hadlaynay dhowr qodob mid waxaa mid xisbiga hawshiisa ah waad ogtihiin rabadaan bacdigeed waxaa bilaabmaya ololihii kaar qaybinta ee hargeysa Maroodijeex iyo Togdheer kaa diyaar garowgiisa waa ka hadlay ka qayb qaadashada howlaha qaranka ee iminka taagan iyagoo aanu ka hadal hadalka muuse biixi cabdi gudoomiyaha ahna musharaxa jegada madaxweyne xisbiga maxaafidka kulmiye ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli cudurka shuban biyoodku fara badan ku hayo gobolka Togdheer isla markaana xaalad degdeg la geliyay gobolkaasi. Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen, Universal TV, Hargeysa. gudoomiyaha banka dhexe Somaliland ayaa waxa uu sheegay maanta qorshe cusub oo hoos loogu dhigayo qiimaha sarifka lacagta qalaad ee dollarka sarana loogu qaadayo shilinka Somaliland. Mukhtaar Ismaaciil Cali ayaa faahfaahinta warkani magaalada Hargeysa inoogu diyaariyay. muddooyinkii u dambeeyey waxaa suuqyada waaweyn ee magaalada Hargeysa ka jiray sixir barar baasan kaasi oo keenay inay sare u kacdo maciishadu iyadoo hoos u dhacna uu ku yimid shilinka Somaliland waxaana banka dhexe Somaliland qaaday tallaabo uu ku xakameynayo sixir bararkaasi baasan ee ka jira suuqyada waaweyn ee magaalada Hargeysa. gudoomiyaha banka dhexe Somaliland Maxamed Cabdi Ibrahim oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay suuqyada waaweyn ee magaalada Hargeysa ay geliyeen sarif lagu xakameynayo sixir bararkaasi. waxaan ogeysiinaynaa mujtamaca ama dadweynaha reer Somaliland iyo inta ku taxalluqda sarifkaba in bankigu shalayto uu bilaabay sarif oo suuqa gelinayo oo muddo aanana laga sugayay ballanqaadyo horena aanu sameynay aniyo wasiirka maaliyaddu maantana shalaytana aanu bilownay maantana aanu ku xijinay wadi doonana insha Allah maalin walba ilaa inta hoos ka dhacayo uu soconayo waan hawshaas waanu ku tala jirnaa in badanna waanu u soo xamxaamaneynay hase yeeshee hawshu waxay bilaabantay shalayto maantana waanu ku xijinay saad idinku soo aragteen taas markaa waanu sii wadaynaa dadkana waxaan ugu sii bushaareynaa inaanay lacagtooda aanay daadinin ay dadka iska baayacaan oo dadkan maartay warka inta u sheegaan oo iska qaadanaya ay wadaan annaguna waanu wadaynaa insha Allah ilaa intuu Ilaahay ka qadaro waanu wadaynaa ee awoodayada waanu dadaalaynaa shacbigana waan u maqannahay markasta heegan baan u nahay wixii kale ee markaa ka soo baxa na weyn u wada joognaa insha Allah. mid ka mid ah sariflayaasha magaalada Hargeysa oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan tallaabadan uu qaaday banka dhexe Somaliland kaasi oo ku xakameynayo sixir bararka. banku wuu soo daayay lacag badan oo dollar shalay iyo maantaba waanu wadayaa ilaa shilinka Somaliland in intuu tayo yeelanayo
wuxuu marayaa 9,300 oo shilin wiigan gudihiisa maantana wuxuu marayaa 9,000 oo shilin